anigoo ah Xudayfa Daawud Yuusuf oo ka tirsan ururka Al-Shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada ee gawaarida ku xirta. Maanta waa taariikhda 23 bisha 11aad sanada 2019. maanta abaarihii 2 sac ayaan kasoo dhaqaajiyay degmada Dharkeenley. Markaa kasoo dhaqaajiyay waxaa watay bambada gaari loo xiray. waa soo baxay waxaa imaaday beerta cabaar joogay. markaan joogay waan baxay waxaa aaday isgoodka Banaadir. intaas dhan waa la hagaagay. marka isgoodka Banaadir aaday haddana biyo ala qabsaday waa baxay waxaa tagay sheekadii Zoobe anoo joogay soo wacay hayno Zoobe waxaa la sheegay macna wax oo gaari ku aragtay inta hadda kugu muuqato gaari saarif oo bensal ah oo lambar la'aan ah ay muuqataa. arno waxaan la soo gudbiyay waxa waaye meesha tahan hadda dadkii waaweyneen marka gaariyaas u qabso loo number badan aan ayaga isticmaalay gaari aan taarga lahayn waayahan dhahay. marka shaqadiisa u dhacday kadib anna waa la qabtay ciidamada amniga.